may casharkan wuxuu ka mid yahay 8 qaybood ee hadalka waxaan rabaa inaan dhameeyo soo gabagabeeyo qaybtan waa afraad sida listiga u qornaayeen waa afraad ama waxa waaye verbs markii 8 qaybood hadalka aan ka hadlaynay wuxuu noqonayaa number 4 so marka number 4 kaas ayaa rabna caawinaa casharkan ku sharaxno verbs waxa weeye ficilo ama ficil marka kaliya yahay markay badan yihiin ficilo waaye so marka halkan oo aan ku dareeno sida af Soomaaliga u saxno verbs waa erayo ficilo ah hadaba ficilada inaad fahmi weydaa laga yaabaa ficilada maxay tahay waa erayo markii oo wax la sameynayo ama hool la qabanayo ka hadlayo ani hadda waa hadlaya hadalkaas waa ficil adi waa daawanaysaa daawadashadaas waa ficil adi waa dhageysanaysaa dhageysigaas waa ficil waa hool shaqo la qabanayo wax la sameynayo waaye waxaana sameynayo shakhsiyaadka kala duwana aan soo barnay oo magacyadooda aan hore u soo barnay ayagoo nouns iyo ayagoo pronouns soo marka maadaama aan hadda ficilada mareyno iyo sida loo sameynayo halka waxaa ku qoray ilaa 5 ficil way fara badan yihiin example waaye inta kale adiga raaso xisaabaadkaadan isku darso aniga kaliya tusaale ku siinaya iyo sida ficilada loo isticmaalo ama ay yihiin hadaba marka 5 eray halka ku qoray laba horta ardayda aad bay ugu dhiban yihiin waa isku qaldaan oo socodka iyo dhawaaq balka codka dhawaaqistooda iyo isku qaldaan iyo macnahaantooda erayga koowaad meeshan ku yaalo waxa waaye walk number 1 walk halkan waa ku jirto waxa uu akhrinaysaa ugu dhawaaqaysaa sida oo kale walk aad leedahay soo marka dhawaaqi waxay noqonaysaa sidaas camal waxay noqonaysaa dhawaaqi hada sifac u qoro walk marka leedahay walk saasay noqonaysaa af Soomaali walk dhawaaqi marka waa saas walk marka leedahay waa socod lugayn marka aadan u baahneen gaari inaad raacdid meel ku aadid ayaa la yiraahdaa walk waa soconaysaa ama waa lagu baxsanaysaa ama goobtaada shaqo ama meesha marka socotay ayaa lagu tagaysaa oo lugaynaysaa walk allaha soo marka number 2 ayaa sida u qoran tahay dhawaqa walk waa meesha oo waa ku jirto hada